kulankan oo furay agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa wasaaradda caafimaadka ku matalaya Dr. Cabdalla Guraash madaxa hoggaanka maamulka caafimaadka waxaana lagu soo bandhigay heerka ay marayaan dowladaha saxiixay UHCP iyo caqabadaha soo wajahay dowladahaasi sida loo xalin lahaa. waxaa kaloo lagu lafaguray dhinacyada horumarka ka sameeyay iyo kuwa weli dib u dhaca oo ka haysto, waxaana la isla gartay in aanan cidna laga tegin oo dowladaha maqan lagu soo daro kuwii horay ugu jirana ay ku dadaalaan in 2030 ay gaaraan yoolka caafimaadka loo dhan yahay. yoolka caafimaadka loo dhan yahay waa sinaan iyo in nidaamyada caafimaadka ku shaqeeyaan qof kasto inuu helo caafimaad dhammaystiran iyadoo aan loo eegin cidda ay yihiin, meesha ay ku nool yihiin ama inta lacag ay haystaan. waxayna qayb ka tahay hiigsiga xaqiijinta qorshaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka in muwaadin kasta uu helo xuquuqda caafimaadka ee u baahnaa. sidoo kale shirkaani waxaa looga hadlay arrimaha saameynta ku leh xaqiijinta yoolka iyo waxyaabaha caawini karo in dowladaha dhaqaalahooda hooseeyo ay gaaraan yoolka caafimaadka loo dhan yahay. waxaa jiro kulamo gaargaar ah oo ay dowlad kasta ku raadinayso ama kula kulmaysay xubnaha ay u aragto ay kala shaqayn karaan xaqiijinta yoolka.